subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado 10 bisha September sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xadii ka digay in dalkiisa uu duleyn doono dal kasta oo qatar ku ah madax banaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin gobolka xilligan kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in faldimiyadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda aheeday amba waqtigii loo baahnay in la geliyo aan la gelin sidaa darteed baarista caqabadaha ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin markii loo fiiriyo kiisaska maxkamadda ka jirana aadaa waxaa uga jira culeysaa ka jira caqabadaa ka jira kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo markaasi ka warramayay kiisaska ugu culculus ee tegaya maxkamadda oo kordhay iyo weliba garsoore la'aanta iyo weliba in xabsi yaraan ay dalka ka jirto ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida adeega gargaarka degdega ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil aroornimadii hore ee talaadada maanta ah ku bartilmaameedsadeen teendhooyin ay ku nool yihiin dadka ku barakacay dagaalka Gaza lagu dilay tiro aan weli la cayimin oo u badan rayd saraakiisha caafimaadka ayaa se xaqiijiyey dhaawaca 65 qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen xarun ay ka howlgalaan Xamaas oo ku taala koonfurta Gaza. Dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in teendhooyin ku yaala xerada Almawasi ee duleedka degmada Yunis, halkaas oo ah goob ay Israa'iil u calaamadaysay inay tahay zoon colaadda ka caagan la bartilmaameedsaday. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in ilaa 4 gantaal lagu garaacay xarunta. xerada ayaa la ciiraysa qoysas badan oo Falastiiniyiin barakac ah kuwaas oo isaga kala yimid meelo badan oo marinka Gaza ah. Ilaa 20 teendho ayaa la sheegay inuu dab qabsaday welina lama oga khasaaraha dhabta ah ee duqeyntaasi. Waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa hore u sheegtay in tirada dadka lagu dilay Gaza ay kor u dhaaftay 40,000 oo Falastiiniyiin ah tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii hore markaas oo uu dagaalka bilowday. ugu yaraan 58 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka 40 kalena la la'yahay kadib markii duufaan loogu magac daray Yage ay garaacday waqooyiga dalka Vietnam. saraakiisha waaxda maareynta masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan ay sababeen fatahaado iyo dhulgo ka dhashay roob watay dabaylo xoog leh oo duufaanta ay wadatay. duufaanta ayaa bilaabatay Sabtidii waxayna xoogeeda ku dhacday xeebaha waqooyi bari iyada oo curyaamisay dhulka warshadaha caanka ku ah. saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 750 ruux. dowladda ayaa ka digaysa fatahaad ka dhalan karta webiyada ku yaala waqooyiga Vietnam oo heerka biyahooda uu aad sare u kacay. dhageystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa axadii ka digay in dalkiisa uu duleyn doono dal kasta oo qatar ku ah madax banaanidooda. hadalka Abiy Ahmed ayaa imaanaya xilli ay xiisado ka taagan yihiin gobolka markaasi taasoo u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya
waxaana xiisadaasi ay sii kacday markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii ugu dambeeyey ay ku yeesheen magaalada ankara ee dalka turkiga iyo heshiiskii difaac ee soomaaliya ay la gashay masar. warbixin uu markaasi qoray iskandar feru ayaa waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur. isaga oo ka hadlayay munaasabad lagu xusay maalinta qarannimada ethoobiya oo lagu qabtay xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada adis ababa ayuu abiy axmed ku faanay in ethoobiya ay iska difaacday weerar dibadda ah. waxa uu digniin u diray wax uu ku tilmaamay kuwa dhow iyo kuwa fog. marka qof walba uu rabo inuu weeraro ethoobiya uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer. abiy oo la hadlayay askarta ethoobiya ayaa sheegay in indhowaalaba ay jiraan wadahadallo ay dhici karto in ethoobiya ay colaad la gasho dalal gaar ah. sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka, ethoobiya marar badan ay la dagaalantay soomaaliya iyo suudaan 50kii sano ee lasoo dhaafay. abiy axmed waxa kale uu sheegay in ethoobiya ay sii wadi doonto dadaalada midaysan ee dadkeeda. si kastaba ha ahaatee hal xabad kuma aanan ridin mid ka mid ah dalalka dariskeenna. mas-uuliyiinta sare ee dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa tan iyo horaantii sanadkan ku lug lahaa khilaafaad diblomaasiyadeed oo aad u kulul kadib markii ay maalintii ugu horreysay ee sanadkan 2024 ay ethoobiya la saxiixatay somalilan heshiis is-afgarad ahaa. is-afgaradka ayaa ethoobiya galaangal u siinaya badda soomaaliya, halka somalilan ay taasi ku bedelanayso aqoonsi ay ka hesho ethoobiya, sida ay sheegeen saraakiisha somalilan. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay heshiiskaasi is-afgarad in uu xadgudub ku yahay madax bannaanideeda islamarkaana ku boorisay adis ababa inay ka laabato. somalilan ayaa si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya bilowgii 90-maadkii, hase ahaatee weli ma helin aqoonsi. dowladda soomaaliya ayaa rumaysan in somalilan ay tahay qayb ka mid ah gobolladeeda. ethoobiya iyo soomaaliya ayaa horey u dagaalamay 2 jeer sababo la xiriiray muran ku salaysan dhul iyo xuduudo. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey uga digay in ethoobiya ay qaadi doonto eedda iyo mas-uuliyadda haddii ay dib u soo noolaato cadaawaddii hore ee soomaaliya iyo ethoobiya. horaantii sanadkan mar uu hadlayay ayuu sheegay in ethoobiya haddii ay 1 tallaabo qaaddo ay soomaaliyana qaadi doonto 2, 3 ilaa 4 tallaabo. wuxuu kaloo ka digay in bulshada caalamka aysan ku eedayn karin go'aanada ay qaadanayso dowladda soomaaliya. dhowaan ayay ahayd markii soomaaliya ay heshiis dhinaca difaaca ah la gashay dowladda masar oo ah dal ay ethoobiya ku kala aragti duwan yihiin maamulka biyaha webiga niil. qaahira iyo adis ababa ayaa sii kala fogaaday wixii ka dambeeyey markii ay ethoobiya dhistay biyo xireen aad u qarweyn oo ay masar u aragto halis ugu dambayntii oo mane ka dhigi doonto dhulkeeda. soomaaliya ayaa ka go'an in ciidanka ethoobiya ay ka baxaan dalkeeda wixii lagu gaaro bisha disembar. waxay sheegtay in ay doonayso in masar ay kaalin weyn ka ciyaarto wejiga cusub ee howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee bilaaban doona bisha januari ee sanadka 2025. ethoobiya ayaa dhowaan howlgalka cusub ee soomaaliya ku tilmaamtay mid khatar ku ah gobolka. ethoobiya waxay kaloo sheegtay in kuwa mas-uulka ka ah diyaarinta howlgalka cusub ay tixgeliyaan walaac ay ku sheegtay in uu sharci yahay, kaas oo ay qabaan bay tiri dalalka gobolka iyo kuwa ciidamadooda ay ka howlgalaan soomaaliya. dhinaca kale dowladda masar ayaa toddobaadkii hore warqad u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobey si ay u muujiso walaaca ay ka qabto wax ay ku tilmaamtay siyaasadaha ethoobiya ee ku aadan biyo xireenka weyn ee ethoobiya. masar waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay qaado dhammaan tallaabooyinka uu damaanad qaaday axdiga qaramada midoobe si ay u difaacdo bay tiri jiritaankeeda, awoodda dadkeeda iyo danaha dalkeeda. mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay. markana muqdisho, gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa idaacadda v o a uga waramay culeysyada kiisaska ay qabtaan oo maxkamadda
ee maxkamadda oo aada u kordhay iyo baahida garsoore la-aan ee jirta. garyaqaan saalax ayaa sheegay in dacwadaha ugu badan ee soo gaara ay yihiin kuwa dembiyada ciqaabta, isagoo dhinaca kalena tilmaamay inay jirto baahi xabsi oo aada u daran kadib markii dadka ay soo xukumeen ay buuxdhaafiyeen xabsiga dhexe ee muqdisho. wuxuu sheegay inay kordheen kiisaska kadib markii si toos ah looga baahiyey telefishinada dacwado ay maxkamadda horey u qaaday. wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriirtay ayaa guddoomiyaha marka hore weydiisay kiisaska ugu badan ee maxkamadda ay qabato waxay yihiin. kiisaska maxkamadda ugu badan oo ay qaado oo maxkamadaha ka furmo dacwadaha ciqaabta la xiriira ama kiisaska ciqaabta la xiriira, kuwaasoo lambar badan ah markii loo fiiriyo kiisaska kale ee maxkamadda ka furma. marka lambarka hadda ugu badan maxkamaddu ka garnaqdo waa kiisas ciqaab ah oo faldembiyeedyada la xiriira. marka aad qiyaas ahaan naga siiso culaysyo badan ugu badan hadda xaggee idinka soo wajahaan? ma dembiyada mase garnaqa? hadda dhulkoo kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee dadku ay maxkamadaha ay u tagaan. marka culayska ugu badan dhankee idinkaaga yimaadaa? culayska ugu badan markii la yidhaahda dacwadda iyo qaadisteeda iyo socodsiinteeda labaan u kala qaadi karnaa. mid waxa waaye mid la xiriira waktiga ay dacwaddu qaadanayso, lambarka garsoorayaal ee loo baahan yahay ku saabsan tusaale ahaan galalka furmaa iyo muxuu ahaay garsoorayaasha jooga maxkamadda oo ka garnaqaaya oo aan isu dhigmin, oo runtii galalku ay aada uga badan yihiin markii loo fiiriyo garsoorayaasha maxkamadda ka howlgala oo 13 garsooraha guddoomiyu 14 ku yahay, iyo galalka oo aada u fara batay. dhanka kale dacwadaha la xiriira ciqaabta laftigooda caqabadaha ka jira, oo caqabado waxaa ka jira dacwaddu markii ay soo gaarto maxkamadaha ay soo gaarto. dabcan dacwadda waa la dhegeysadaa. dacwadda markii la dhegeysanayo in cadaymaha la xiriira qofka eedda loo haysto oo aan sidii la rabay amba sidii sharcigu oo ogolay aan loo diyaarin, ama kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in faldemiyadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda aheeday amba waktigii loo baahnay in la geliyo aan la gelin. sidaa darteed baarista caqabadaha ka jirta, yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin markii loo fiiriyo kiisaska maxkamadda ka jirana aadaa waxaa uga jira culeysaa ka jira, caqabadaa ka jira. dhowaan waxaad sheegtay in aad u baahan tihiin garsoorayaal oo kaysas badan ama faylal badan ay yaalaan oo dacwado ah. marka ma waxaa kordhay dacwooyinka mise waxaa yaraaday tirada garsoorayaasha? waxaa jirta 2 sano ee lasoo dhaafay, waxaa jira dacwado la baahiyey oo meediyaha cid kasta ay ka daawanaysay, oo arrintaasu oo door weyn ka qaadatay inay kiisas fara badan maxkamadda ka furmaan, taasoo markii hore aan la filanaynin. garsoorayaalka baasati leh oo muxuu ahaa dowrkaas qaadan kara inaanay jirin la aaminsanahay. sidoo kale la aaminsanahay meesha inay tahay meel muxuu ahay laaluush iyo musuq maasuq ay ku xiran tahay kiiskaaga inaad guul ka gaarta. laakiin hadda dadweynaha iyo muxuu ahay dadka soomaaliyeed guud ahaan ay ogaadeen in qofka ay ku xiran tahay guushiisa kiiska, sida u doodo iyo cadaymaha oo wato. sidaas darteed waxaa sidoo kale kordhay fulinadii xukunada madaniga ah oo maxkamadaha ka soo baxa oo dadweynihii dhulalkoodii iyo agabkii laga haysta lagu wareejinayo oo iidana meediyaha si fiican loo isticmaalay. taasaa waxay keentay inuu koror ku yimaado dacwadii ka furmaya maxkamadaha. arrintaas waxay kordhisa marka baahidi loo qabay garsoorayaal, baahida loo qabo maadaama kiisaskii ay kordheen. dhanka kale waxaa inay kororto qasab noqotay garsoorayaashii, sidaasaana garsoorayaal baahi weyn ay uga taagneeday. sanadkii lasoo dhaafay 2023 bishii Sebtembar ayaa garsoorayaal muxuu tartan furan la geliyay oo 30 garsoora iyo 20 xeer ilaaliye, waxaana kusoo baxay lambarkii la rabay. kadibna waxaa madaxweynaha kusoo saaray dekreeto madaxweyne heleen, laakiin weli ma helin xuquuqdii xaq ay ulahaayeen si ay u howlgalaan oo ay maxkamadaha garsoorayaal rasmiya intay uga noqdaan ee go-aano usoo saaraan. marka baahidaas way jirtay, welina way taagantaha ooma dhammaan. waxaa jirta mudane guddoomiye in qof lagu soo qabto dembi ku aadan ama inuu dhac geystay ama uu qof alaab ka qaatay, laakiin loo geeyo oo xabsiga lagula xiro qof argagixisnimo ku aadaysan. waxaa jira in dadka qaar ay lagu tashkiiliyo gudaha xabsiga oo kale. qofka marka la xiro sidee
in la dhaqan celiyey in dembigii kasokow in lagu ciqaabayo ma la socotaa dhaqan celin ma helaan ma la kala saaraa dadka oo dadka argagixisnimada u xiran iyo qofkii wax yaruu soo xada loo soo xiro ma kala leeyihiin qaybo lagu kala xiro arrintaas la xiriirtaa qofka iyo faldambiyeedka loo haysto iyo faldambiyeedyada kale dadka kale loo haysto in isku meel lagu xiro iyo inaan isku meel lagu xirin dabcan annaga maxkamadaan nahay dadka xabsiga gacanta ku haya ma ahan maxkamaddu ma ahan waxaa jira hay-ada fulin waxaa la wareysan karaa ciidanka asluubtaa la wareysan karaa hay-ada fulintaa la wareysan karaa laakiin guud ahaan maxkamadda mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof eedaysana haddii loo keeno una muuqato faldambiyeedkan in uu galay ay u muuqato mabda'iyan ay u muuqato in ay xabsi u dirto xabsi u dira kaliya maahane wixii kale oo la xiriira xabsigaas iyo sida meesha lagu xiraayo waxaa iskale hay-adda fulinta iskale maxkamaduhu muxuu ahay ma lahan laakiin kormeerka ayaa garsoorku qayb ka leeyahay xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa wuxuu leeyahay inuu kormeero oo xabsiyada kormeero oo fiiriyo duruufaha iyo sida loo nool yahay dabcan loojiga ama caqliga ayaa wuxuu keenaya inaan dad qof dhac u xiran iyo qof dil u xiran inaan isku meel lagu xirin ama qof argagixisa u xiran inaan meel lagu xirin laakiin dabcan duruufo badanaa jira dalkan wuxuu u baahan yahay xabsiyo waaweyn u baahan yahay duruuftiina weli way taagan tahay xabsigan dhexe magaalada muqdisho ku yaala waxaa loogu talagalay taqriiban aba qiyaas ahaan 1,500 haddana waxaa ku xiran 3,000 ku xiran marka duruuftaas iyo baahidaasna waa dareemi kartaa marka ma xabsigaas keliya ku yaala magaalada oo dadka lagu xiraa markii la xukumo magaalada xabsi waxaa ku yaala xabsiga dhexe magaalada oo la yaqaano oo xilligii talyaaniga la dhisay hadda ayaa waxaa xabsi laga dhisay kilomitr zaman xabsigaasaana hadda dadka xabsigoodu uu dhaqan galay amba xarigooda uu dhaqan gala oon maxkamadda maan sugaynin ayaa lagu wareejiyaa laakiin weli baahi waxaa taagan la xiriirta xabsiyada la xiriirta aaday u taagan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax maxamuud cali oo u waramayey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan